ummadii oo dhan waxay noqotay dad umul ah oo wixii dhacay hore uga soconay. inkastoo dowladnimada Soomaaliya la dhihi karo way dhismaysay waayadii ugu dambeeyay marka la eego xagga dimuqraadiyadda iyo isdoorashada, haddana waxaa la sheegaa mar walba inay dowladnimada Soomaaliya hareer socdaan caqabado waaweyn oo ka imanaya madaxda waddanka oo qaarkood la sheego inay faraha la galaan dambiyo waaweyn iyagoo difaaca dad lagu eedeeyay ama ku eedeysan dambiyo ay ka galeen caalamka. Waxa laga fahmi karaa taliska hore iyo taliska maanta jooga inay isku ka ahayeen dhinaca xuquuqda aadanaha, labadoodaba faylkooda xuquuqda aadanaha inuu aad u liito. dilka dadka iyo dhaca iyo gumaadkuna inuu agtooda waxba ka ahayn ee wax ka ay tahay kuwa noo guuloodeeya, noo nacamleeya, dadka noo gumaada, dhiig noo dhaxgala, kuwaasaa noo muhiimsan ee hawshoodu tahay inay xukunka nagu hayaan. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis waxa uu sheegay ha noolaato inay jiraan mar walba dad ka mid ah madaxda oo dad kale u isticmaala dambiyo kuwaas oo laftooda qayb ka ah dambiyadaasi si ay dadkaasi u badbaadiyaan sameeyo inay lacag badan ku bixiyaan si ay u difaaci lahaayeen dhagarqabayaasha ku eedeysan dambiyo gudaha ah. Xasan Sheekh marka lacag iyo dhaqaale fara badan ayuu ku bixiyay in la tiro UN-ta la dacweeyo UN Monitoring Group laga tiro ayagoo isticmaalaya khibradii Eritrea samaysay jirta mar walba markay soo eedeeyaan. Marka sidii ayaa UN-tu meel u dhigtay faylkii Xasan Khayre oo ay dambi ku heleen ayagoo ka duulaya looyarada Xasan Sheekh qabtay ee qaaliga ah. Marka meel ay dhigeen tii farmaajana iyo Xasan Khayre xukuumaddiisina waxay ayadana daafacday sida aan ku tilmaamaba danuubtii iyo gaboodfalkii iyo dhiigii cabiirnimadii iyo gacan ku dhignimadii Saadaq John ay aydan intaasoo milyan oo dhaqaale ku bixisay. Marka laga hadlo difaacistii ugu dambeysay ee lacagta malaayiinta uu sheegay Maxamed Xaaji Ingiriis ay bixiyeen madaxweynayaashii ugu dambeeyay ee waddanka si ay u difaacaan dad la sheegay inay iyagu u dhawaayeen ayuu ku tilmaamay inay ahayd khiyaano qaran tan ugu weyn ee dal laga galo. Waxaana uu sheegay inay dhiiri gelinayso in qof kasta intuu dambi galo uu helo cid ka difaacda dambiga, mucaarad ha noqdo, muxaafid ha noqdo, qof shicib ha noqdo, qof kale ha noqdo, mid dawlad ku jira ha noqdo, inaan marnaba la ogolaan Soomaali inay isu gumaado abuse of power inay isku disho, inay dhiig isaga daadiso, anaa xoog igu raacaysaa, anaad ii nacmalaynaysaa, anaa ii guloodeynaysaa. Taas inay harto ayaa in laga wada shaqeeyo. Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa sheegay in isaga iyo dad kale oo aqoon-yahan ay daba socdaan dambiyada ka dhaca waddanka iyo dadka difaaca dambiyada haddii ay noqon lahaayeen madaxda dowladda oo uu sheegay inay dilaacsiiyaan oo ay darajooyin siiyaan dad geystay dambiyo. ninka u liitaa waa kan awood uusan lahayn ku tagrifala ee muddada uu joogo dadka ku gumaada, ku laaya, wax ku aruursada, wax ku dhaca, dadka cagta hoosteeda ku geliya, maalintuu baxna meelahaas masaakiin isaga dhiga dadka isu jajabiya. Faraldambiyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay waddanka 4 sano ee ugu dambeysay ayaa marka laga yimaado in Al-Shabaab ay si toos ah u weeraraan hannaanka dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed, waxa dhanka kale aan ka marnayn dowladda oo aan laga nabadgelin oo geysatay dambiyo waaweyn oo ay kula kacday dadka Soomaaliyeed. Waxaana ka mid ah gabadha la yiraahdo Ikraan Tahliil oo dadkeedii ilaa hadda ay raq iyo ruux raadinayaan halkay ugu dambeysay. Kayska Ikraan wuxuu u baahan yahay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo. Waqtiga cadaaladda helaysana ilama muuqateen hadda tahay. waxay cadaalad ku heli kartaa dowladda dambe ee timaada oo guddi u saarto baarta. Ikraan kaliya ma ahan dad badan oo ayada la mid ah jiro la laayay ayaan la ogeyn. Lisma weydiino ayaan ummadii oo dhan waxay noqotay dad umul ah oo wixii dhacay hore uga soconay. Waa mid la mid ah Saadaq John oo dhiigay gacan ku dhiglaan intuu soo fakaday April uu yiri dowladdan ka joojina baarlamaan been ah, ajalad been intuu duubay fakaday cararay shirku la galay laga dhigayo nin ceebka saliima waxba gelin. Marka bari inta dad gumaadid oo dad leysid oo dad kufsatid oo dad xasuuqdid oo dad meydka ku aastid lafahooda iyo dharkooda haddaad tiraahdid mucaaradan galay oo banaanbaxaan wax ka soo galaa yaa ku cafinaya ma kuwan mucaaradka sheeganaya ku cafinaya no ma muxaafad kuwa sheeganaya ku cafinaya no waxaa ku cafinaya maxkamadda cadaaladda loo geeya ku cafinayso ama ku daynaysa ama dambigaada ku xukumaysa. Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ugu dambeyn waxa uu leeyahay marnaba kuma cusba Soomaaliya inay ka dhacaan dambiyada ay geystaan madaxda dowladda haddii ay noqon lahayd ku tagrifalka awoodda dowladeed iyo boobka hantida dadweynaha. Laakiin waxa cusub oo tilmaamayo waxay tahay in dad dambiyo galay lagu difaaco shaarka dowladda kuwaas oo xitaa laga difaaco caalamkii doonayay inay tallaabo ka qaadaan. Ayaan la Xuseen Cabdi ha noolaato. Dowladda dambe ee dhalan doonta ee iman doonta inay dowlad fiican tahay inay kuwii hore la mid tahay waxa cadeyn doona qaabka ay ugu dhabagasho wixii dulmi iyo danuub iyo gaboodfala dhacay uguna saarto dad qubara ah iyo dad soo baara arrintaas maxkamadna lagu horgeeyo dadkii danuubtaas galay oo dhan dowladnimada meeshaas ka saxmaysaa. haddii aan kuwii lacagta boobay
lacagta ku bixiyay inay dhiig yacbiyo iyo gacan ku dhiglayaal ku difaacaan la dabageli kari waayo waxay macnaheedu tahay jugjug meeshaada joog inaan hore la soconayn si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid